بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت ونكسن مالك السؤال شوكتاني حلك السؤال دين تهي كسو هذا عشرة دي تحانا أها إنو سعودي برشاد اللغة إنجليش كار أهان كورس دي بلوغ أهد عشر كان ما أنتو حنكو قادن دونا موضوع مهم إسلا مركانا مركي عشر كان ودمادو وحا إنو حيقي دونا إن قيمين آن سمينو إنتي عشر إنو سو قادني oo mid kasta mowduucyo aad muhiim ugu ah aasaaska luqadda Englishka aynu kusoo qaadanay. Casharkan waxaynu ku qaadanaynaa waxa la yiraahdo apostrophe s. Calaamadda la yiraahdo apostrophe-ta waynu arki doonaa waxa ay tahay iyo s oo lahaansho muujiya isla markaana lahaansho loo isticmaalo ayaynu arki doonaa. Marar waxyaabo kale loo isticmaalo ayaa jira laakiin markaan lahaansho ayaa loo isticmaalayaa ama wax uu qof leeyahay ama wax dad leeyihiin ama wax laba shay oo isle tusaale ahaan guriga iyo daaqadihiisa oo kale ama xafiiska iyo kuraastiisa iyo miisaskiisa oo kale tusaalayaashaas ayaa ka mid ah. Si faahfaahsan ayaynu u fahmi doonaa ina Maria oo diyaar garooba casharkan wuxuu ku saabsan yahay using isticmaalitaanka apostrophe for oo loo isticmaalayo belongs lahaansho. Using waa isticmaalitaanka ama isticmaalka apostrophe calaamadda la yiraahdo apostrophe for oo loo isticmaalayo belongs. Apostrophe haddii aad maqasho waa calaamadaas, waa calaamad yar oo sidaas oo kale ah. Marka waan arki doonaa ayadoo faahfaahsan. Apostrophe markii lahaanshaha loo isticmaalayo sidaan ayaa loo sameeyaa soo socota. Apostrophe calaamadaas yar ayaa la yiraahdaa apostrophe. Okay, waa arki doonaa calaamadda halkaa iyo halkaa iyo halkaa iyo halkaa ku jirta ayaa la yiraahdaa apostrophe. Marka apostrophe-ta marka la sameynayo sidaan ayaa loo sameeyaa. Noun lagu daray apostrophe s ama s apostrophe. Apostrophe-ta waa calaamadaas, okay, lagu daray noun. Magac lagu daray calaamadda apostrophe-ta kadibna s ama lagu daray s kadibna apostrophe kadibna lagu sii daray noun. Markaas ayaa lahaansho ka soo baxayaan meesha. Okay, tusaale tusaalayaal. Alice book, Ali buugiisa. Qofkan waa Ali ama Ali, okay? Alice book, Ali buugiisa. Marka waad arkaysaa halkan waa magac oo waa Ali, halkan waa book. Marka magac lagu daray apostrophe s kadibna lagu sii daray magac kale. Alice book, Ali buugiisa. Buugan inuu Ali leeyahay xadaynaysa apostrophe-tan iyo s-tan. Labadan magac midka markasta dambeeya ayaa la leeyahay, midka hore ayaana leh. Tusaalaha labaad, Layla's pen, Layla qalinkeeda. Layla's pen, Layla qalinkeeda. Qalinkan ayaa la leeyahay waxaana iskale Layla. Waxaana noo cadaynaya apostrophe-tan iyo s-tan la socota. Okay, chairs legs, kursiga lugaha kursiga. Chairs legs, kursiga lugihiisa ama lugaha kursiga. Waxaa la leeyahay lugaha waxaana leh kursigan. Okay, chairs kuraastan, okay, legs. Marka maxay ku kala duwan yihiin? Marna apostrophe halkan ayay soo martay, marna gudaha ayay gashay. Markii jamac uu yahay magaca hore oo s tusaalahan chair kursi ayuu ahaa, jamac si looga dhigo chairs ayaa la yiri. Markaas apostrophe-ta banaanka ayaa la soo marinaya. Markii jamac uu yahay magacu, apostrophe-ta banaanka ayaa la marinaya. Markii hal uu yahay magacuna, gudaha ayaa la gelinaya. Okay, tusaale ahaan halkan arag houses window, guriga daaqadiisa ama daaqada guriga. Houses window, daaqada guriga. Waxaa la leeyahay daaqada waxaana leh guriga. Apostrophe s-tina waad arkaysaa waa tasaa calaamadaas iyo s-taas ayaa muujinaya in daaqada uu leeyahay guriga. Haddii apostrophe-ta banaanka la soo mari lahaa halkan lagu qori lahaa jamac ayay noqon lahayd, waxay noqon lahayd guriyo. Laakiin apostrophe markay gudaha ku jirto waa hal guri. Two girls pens, two girls pens, two girls pens. Laba gabdhood qalin qorigood. Okay, two girls pens, laba gabdhood
qalin qorigood. marka tan apostrophe waxaan rabnaa inaan ku darno halkee ka saarayna marka waxa laga rabaa 2 second inaad isku daydo oo ka fikirto calaamadu ma gudaha ay galaysaa markaas banaanka ay imaanaysaa mise gudaha ay galaysaa labadan gabdhood qalin qorimadooda. I hope waxaan filayaa waa saxday oo waxa tiri calaamadu banaanka ay maraysaa. Okay, calaamadu banaanka ay maraysaa sababtoo ah laba gabdhood waa jamac. Okay, qalin qorimadan labadan gabdhood ayaa iska leh oo labadan ayaa inoo cadeynaysa inay gabdhood jamac yihiin. haddii hal gabar ahaleed gudaha ayaan gelinayn calaamad halkan ay imaanaysaa laakiin hadda waa laba gabdhood banaanka ay imaanayaan. Okay, more examples tusaalayaal dheeraada. This is kani waa Ahmed's mobile, Ahmed mobilekiisa. This is kani waa Ahmed's mobile, mobileka Ahmed ama Ahmed mobilekiisa. calaamadii waa tan apostrophe s-tina waa tan. s-tan iyo calaamadan ayaa muujinaya mobilekan inuu leeyahay Ahmed. Okay, could you take ma qaadi kartaa children's books carruurta buugaagtooda. could you take ma qaadi kartaa could you adigu ma take ma qaadi kartaa children's books carruurta buugaagtooda. children waa carruur jamac weeye. Okay, children waa carruur waana jamac. markii magacu uu jamac yahay oo jamaca aan looga dhigin s-tan apostrophe ay la socotaa laakiin jamac children carruurta sidaan ay jamac ku noqotaa markaas gudaha ayaa la gelinayaa calaamada. gudaha ayaa la gelinayaa. could you take ma qaadi kartaa children's books carruurta buugaagtooda. markii ereyga ama magaca jamac uu yahay oo jamaca aan looga dhigin s calaamada gudaha ayay soo gelaysaa. Okay, could you take ma qaadi kartaa children's books carruurta buugaagtooda. tusaalaha saddexaad. these are kuwani waa Ali and Ahmed's bags. these are kuwani waa Ali and Ahmed's bags. boorsooyinka Ahmed iyo Ali. markii laba qof ay tahay sida tusaalahan oo kale Ali iyo Ahmed qofka ugu dambeeya magaciisa ayaa apostrophe iyo s-tal raacinaya kadibna magacii la lahaa ayaa ka daba maraya. boorsooyinkan waxaa iska leh Ahmed iyo Ali. these are kuwani waa Ali and Ahmed's bags. waxaan filayaa in aynu fahanay apostrophe s sida loo isticmaalo marka lahaansho loo isticmaalayo. exercise-ka soo socda ayaan markaasi ku arki doonaa in aad fahamtay iyo in kale. inta ka horeysa waxaa laga rabaa 2 magac ama 3 magac inaad isku soo daydo oo markaasi ka kooban magac wax leh iyo magac la leeyahay hal mar aan si isla dul marno. waxaan niri using waa isticmaalka apostrophe calaamada apostrophe-ka oo loo isticmaalayo belonging lahaansho. using isticmaalitaanka apostrophe calaamada apostrophe-ta oo loo isticmaalayo belonging lahaansho. marka la sameynayo sidaan ayaa loo sameeyaa. noun lagu daray apostrophe s ama apostrophe ama s apostrophe plus noun waa noun ama magac oo lagu daray apostrophe s ama s apostrophe kadibna lagu daray magac kale. Okay, example tusaalayaal. Alice book. Ali buugiisa ama buugga Ali. Okay, Layla's pen. Layla qalinkeeda. apostrophe-tan iyo s-tan ayaa muujinaya in qalinkan ay Layla leedahay. apostrophe-tan iyo s-tan ayaa muujinaya in qalinkan uu leeyahay in buuggan uu leeyahay Ali. Chairs legs. kuraasta lugahooda ama lugaha kuraasta. mar haddii jamac uu yahay magacu oo s looga dhigay jamac calaamada banaanka ayaa la geenayaa. chair waa hal kursi marka jamac laga dhigo waxay noqonaysaa chairs calaamada banaanka la keenaya markaas. chairs legs. 2 s-na lama keenayo hal s ayaa markaas la isticmaalayaa. st jamaca iyo apostrophe st-diiba halkan xaba ayaa isku ah. chairs legs kuraasta lugahooda. houses window daaqada guriga.
houses window daaqada guriga hadduu jamac ahaa lahaa banaanka ayaa la keeni lahaa waxaa la dhihi lahaa houses calaamadda halkaas la soo dhigi lahaa hadday jamac tahay laakiin haddii mufrad tahay gudaha la gelinaya two girls pencils laba gabdhood qalin qorigooda two girls pencils laba gabdhood qalin qorigooda esta banaanka apostrophe banaanka la keeno markaan sababtoo ah waa jamac waa laba gabdhood tusaalaha ugu dambeeya more examples tusaalayaal dheeraada this is kan waa Ahmed this mobile Ahmed mobilekiisa apostrophe-tan iyo s-tan ayaa muujinaya mobilkan inuu yahay Ahmed could you take ma qaadi kartaa could you adigu take ma qaadi kartaa children's books caruurta buugaagtooda could you take ma qaadi kartaa children's books caruurta buugaagtooda apostrophe-ta iyo s-tan ayaa muujinaya buugaagtan ay caruurta leeyihiin apostrophe-tana gudaha ayaa la gelinayaa markii magaca jamaciisu s uusan ku imaanin magacan child waa cunug markii hore markii laga dhigayo caruurna children ayuu noqdaa these are kuwani waa Ali and Ahmed's bags these are kuwani waa Ali and Ahmed's bags boorsooyinka Ahmed iyo Ali okay boorsooyinkan inay Ahmed iyo Ali leeyihiin waxaa cadeynaya apostrophe s-tan laba magac markay meesha taalo magaca dambe ayaa apostrophe s lagu daraa sidaas ayuu kana uga tirsan yahay intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa casharkeena tan iyo casharka xiga intaan isku soo laaban doono dadaal wacan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.